السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام يا أصحاب تلقاني قد دعواني سبيل والبوتشوكتان يسوي مقالكيو ومركا يدين سو غاريبا مقالكا waxaan doonayaa inaan kaga hadlo wararkii ugu dambeeyay oo ku saabsan kacdoona waaweyn oo dalka Mareykanka ka kacay kadib markii la dilay gabadh dhalinyaro ah oo cadaan ah oo kamid ahaa banaanbaxayaashii garab taagnaa dadka Soomaalida ah ee lagu beegsanayo gudaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaan marka muuqaalkan aan doonayaa inaan bal si gooniya ugu fiiriyo muuqaal cusub oo soo baxay saacadii hadda la soo dhaafay oo ku saabsan qaabkii loo dilay gabadha cadaanka ah ee Rina Good la yiraahdo iyo saameynta weyn ee ka dhalatay muuqaalkaas iyo waliba isla dilka gabadha waxaan kala fiirin doonaa Soomaalidu saameyn intee leeg ay ku leeyihiin cadaalad u raadinta gabadhaasi cadaanka ah oo Soomaalida difaacisay markaynu ka hadlayno dhanka banaanbaxyada markaynu ka hadlayno dhanka dhaqaale ururinta iyo arrimaha ayo dhan aynu muuqaalkanaga aynu ku fiirin doonaa waxaan sidoo kale aan doonayaa inaan fiiriyo kooxihii cunsuriga ahaa ee Soomaalida sida weyn u beegsanayay ayaa waxay hadda xakameyn la yihiin wixii ka dhashay dilkii gabadhaas waxaana muuqata in ajandihii ay kala haayeen beegsiga Soomaalida iyo mashruucan tarxiilka ah in hadda ay wax kale ay ka soo baxeen marka bal arrimaha ayo dhan ayaynu dul istaagi doonaa marka bal soo dhawaada meel joogtaan iyo soo muuqaalkaygu oo marka idin soo gaariyaba waa 10 January 2026 waan markii ugu horeysay maanta hawada ku kulmayno fadlan haddii aad ku cusubtiin channelka min horay subscribe u dhahanin subscribe dhaxda si aad ula socotaan muuqaalada ugu dambeeya ee gudaha dalka Mareykanka Soomaaliya iyo muuqaalada kale ee xasaasiga ee aynu halkan ku soo gudbino maalin walba aad ayaad mahadsantiin madrasada Banaafic Qur'aan online oo fursadii u wadkaa ay ku baran lahaayeen Qur'aanka Kariimka iyo xifdintiisa axaadiista nabigeena hingaada tajwiidka afka Carabiga aqeedada islaamka ducooyinka iyo adkaaraha kale waxa fursadan qaaliga ku diyaariyay madrasada Banaafic Qur'aan online adiga oo jooga gurigaaga ayaa u wadkaa ku baranayaan tarbiyada iyo diinta islaamka haddii aad dhageysta ku sugan tahay qurbaha ka faa'iideyso fursadan qaaliga ayadoo dhammaan dadka yaryar iyo kuwa waaweynba ay ka wada qayb qaadan karaan ama ka faa'iideysan karaan fursadan si aad isaga diiwaan geliso ama u heshid macluumaad dheeraad ah la xiriir taleefanada shaashada ku qoran mahadsanid haddii aan bilowno xaaladda gudaha dalka Mareykanka ayaa gacanta ka sii baxaysa waxaana muuqata in shacabkii Mareykan oo dhan ay kaceen dawladii uu hogaaminayay madaxweyne Donald Trumpna si weyn markaasi looga hor yimaaday isbedelkan wuxuu hadda intiisa badan uu ka dhashay dilkii gabadha cadaanka loo geystay waxaana muuqata in Mareykan oo dhan looga istaagay isla markaana la goobay cadaaladda gabadhaasi cadaanka ah la dilay marka saacadda ka dambaysa waxa soo baxay xoga badan waxa soo baxay muuqaalo kala duwan dadka banaanbaxaya oo dhan telefoon ay gacanta ku haystaan marka marba waxa soo baxay muuqaal angle ka duwan angle-kii hore laga duubay isla markaasna xoga dheeraad ah markaasi muujinaya haddii aynu fiirino muuqaalkan oo kale oo saacadii hadda la soo dhaafay si weyn loogu faafiyay gudaha dalka Mareykanka iyo warbaahinta waaweyn ee muuqaalkan waxa la xaqiijiyay inuu duubay askarigii gabadha dilay ee ayska ahaa ayaa gacantiisa ku duubay markii aad fiirisaan gabadhan la doodaysa askariga ee ayaduna taleefanka gacanta ku haysata waa gabar la socotay gabadhii la dilay muuqaalkan waxa markii ugu horeysay faafiyay wakaalad ay leeyihiin ama wakaaladaha ku hadla afka cunsuriga mid kamid ah oo Alpha News la yiraahdo oo garabka conservative-ka markaasi u hadasha waxaan la rumaysan yahay in muuqaalkan sababtii loo faafiyay inay ahayd in loo arkay in askariga wax dilay uu badbaadin karayo oo uu u noqon karayo arrin asaga lagu badbaadiyo laakiin aragti ka duwan ayaa ka soo baxday inta aan qaybta aragtidaasi aan u galinin isla muuqaalkan sidoo kale saacadii ugu horeysay waxa aad la isku weydiinay in muuqaalkan uu yahay nooca lagu sameeyo AI-ga ama artificial intelligence-ga oo hadda noqdayba problem weyn oo dunida ku soo kordhay laakiin ugu dambeyntii waxa xaqiijiyay wakaaladaha waaweyn iyo qaar kamid ah saraakiisha dawladda Mareykanka waxaana la sheegay muuqaalku inuu yahay muuqaal rasmi ah oo uu duubay askarigii dilka geystay oo markaasi asaga lagu difaacay haddaynu muuqaalka wax yar bal ku dul hakano markii aad fiirisaan muuqaalkan waxaad arkaysaan oo wax ugu horeeyo ka soo baxay ay tahay in gabadha la dilay naftirkeeda la arkayay ayadoo steerinka ka goynaysa ama ka leexinaysa askarigii la sheegay inuu naftiisa badbaadinayay gabadhana ay rabtay
inay gaariga jiirsiiso laakiin waxa la arkayaa gabadhiyo steerinka ka leexinaysa askarigi oo markaasi aan rabinin inay ku dhufato marka muuqaalkaas steerinka la leexinayo ayaa wuxuu yahay muuqaal aragti hor leh ku soo ziyaadiyay xogtii lagu kala aragti duwana waxaana muuqata kooxda Trump iyo waliba dadka difaacaya askarigaasi inay hadda aysan wax badan aysan meesha ku haynin waxa kale oo la yaab noqotay in askarigii gabadha dilay markii uu 3 xabadood ku dhuftay gabadhii gaarigiina uu dhaafay inuu markaasi gabadhii caayay oo uu ku yiri FMB ereyga ka bilaabanaya oo markaasi uu ku yiri markaysa taasoo muujinaysa inuu gabadha caayay inuu caraysana inuu ahaa nin xanaaqsan oo ku talagalay inuu gabadha u waxa sidoo kale la arkayay ka hor intuusan askariga gabadha dilinin gabar kale oo la socotay askarigu inay doodeen ayaa la arkayay laakiin gabadha la dilay ayaa wajigeeda waxa ka muuqday inay ahayd gabar aan dhibaato u soconin gabar askariga aan la dagaashanin si fiican oo la hadlaysa oo aysan ka muuqanin gabar duulaan ah iyo inay markaa ay wax disho marka garabka cunsuriga ah oo filayay inay arintan u noqoto mid askariga lagu badbaadin karayo ayaa waxay xilligan u muuqdaan in aragtoodu ay tahay mid laga adkaaday madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka JD Vance ayaa sidoo kale muuqaalkan wax ka qoray dhanka X-ka wuxuuna sheegay madaxweyne ku-xigeenku dadkii lahaa askariga gaariga kuma dhicinin lama caayinin iyo wuxuu dilay haweeney aan wax dulmi ah samaynin waxa ay dhan waxba kama jiraan ayuu leeyahay wuxuu leeyahay xaqiiqadu waxay tahay in askarigaasi ay naftiisa qatar gashay xabada uu ridana ay ahayd mid isku difaacayay marka madaxweyne ku-xigeenka iyo kooxaha cunsuriga ah waxa kaliya oo muuqaalkan ay ka dhaxarkeen isla markaana ay u faafiyeen oo ay isdhaheen cadeyn bay idin noqon kartaa waa in taleefanka uu askarigu uu ka dhacay halkaasina ay ka soo dhax saarayaan in gaariga lagu dhuftay askariga laakiin macluumaadka kale ee ka tirada badan ee muuqaalkan ku jira ee muujinaya in gabadha si kas ah loo dilay askariguna uu yahay nin dulmi fala ah way iloobeen shayga hadda ugu weyn oo ninkan askariga lagu haysto ayaa waxay tahay xataa hadii xabada ugu horeysa la yiraahdo uu isku difaacay labada xabadood oo kale xilli uu gaarigii uu dhaafay uu gabadha madaxeeda uu ku dhuftay fasiraada loo saari karayo maxay tahay ayagaasna isdifaac ay noqonayaan waa maya laakiin xabada ugu horeysay xataa hadii laga soo qaaday isdifaac labadii dambe waxa ka dhax muuqanaya inuu dilkaasi uu ahaa mid ku talagal ah oo gabadhaasi ka dhanaha iyo aflagaadada kadib unika askariga ah uu gabadhaasi uu ku yiri dhanka kale baaritaan ay sameysay wakaalada New York Times ayaa iyaduna waxay soo bandhigtay xogo hor leh iyo cadeemo muujinaya in askarigani uu gabadha u dilay qaab ku talagal ah waxay wakaaladaas ay soo bandhigtay muuqaalo laga duubay angala kala duwan oo dhamaantood muujinaya in askariga uusan gaariga ku dhicinin inaysan gabadhu doonaynin in askariga ay disho iyo arrimaha ay dhan marka lama yaqaan go'aanka ay dawladda dhexe ee Mareykanku ay ka qaadan doonto kiiskan laakiin waxa muuqda inay dhismayso bareeshar xoog leh oo shacab oo dawladda federaalka ah ka dhana oo xuquuq loogu raadinayo gabadhan la dilay isla markaana lagu dalbanayo in la joojiyo dhaqdhaqaaqa ciidamada ICE ay ku beegsanayaan dadka la sheegay in qaab sharci darro ah ku joogaan gudaha dalka Mareykanka 24 saac ay hadda la soo dhaafay waxa dalka Mareykanka ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo kala duwan mana jirto magaalo weyn oo aan arintan looga banaanbixin labada maalmood oo hadda foodo nagu soo haya oo ay dadku shaqooyinka inta badan ay fasax ka yihiin oo weekendiga ahna waxa loo balansan yahay banaanbaxyo kuwa ka sii waaweyn dhanka kale waxa socda oo ole dhaqaale loogu aruurinayo gabadhan qoyskii ay ka baxday maadaama 3 anug oo yar ah ay ka dhimatay oo midka ugu yar oo 6 sano jira usan xataa aabalahayn campaign fundraising ah ayaa waxa looga sameeyay GoFundMe 24 saac ay hadda la soo dhaafay waxa gabadhaasi loo aruuriyay lacag gaaraysa 1 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka ah hadaba Soomaalida dalkan ku dhaqan qaasatan kuwa Minneapolis ku dhaqan iyo Ohio oo maalmihii la soo dhaafay si weyn loo beegsanayay qayb intee leeg ay ka yihiin olaha gabadhan loogu raadinayo cadaaladda iyo waliba midka kale ee dhaqaalaha loogu aruurinayo haddaynu ku hormarno dhanka banaanbaxyada waaweyn ee ka socda gudaha dalka Mareykanka Soomaalidu qayb bay ka yihiin markaynu ka hadlayno labada magaalo ay ugu tirada badan yihiin waa Minneapolis iyo Columbus Ohio waxaana lagu arkayay dhankaas Minneapolis dad badan oo Soomaali ah iyo madax badan oo Soomaali ah waliba kuwa la doortay oo xilalka ka haya gudaha gobolkaasi inay banaanbaxayaashaasi ay qayb ka yihiin iyo waliba inay la hadlayaan warbaahinta
oo ay Soomaalidu ku leeyihiin soo baxa waxaan sidoo kale arkaynaa gabdho iyo wiilal kala duwan oo Soomaaliyeed oo ayagu cunno inta soo qaaday meeshii gabadha lagu dilay dadka isugu soo baxay dhamaantoodba cunno u qaybinaya waxay siinayaan saamuusa waxay siinayaan shaah kulul waxay siinayaan cabitaan waan arrin runtii aad iyo aad in loo bogaadiyo mudan You want to get some sambusa? halkan waa xarunta ay ku toogtaan gabar la oran jiray oo halkan ay ku toogtaan ciidamada laanta socdaalka Mareykanka inaan halkan ka bogaadiyo wiilasha odayaasha gabdhaha dhalinyarada arrintaas qaybta ka ah oo saacadii hadda la soo dhaafay ay warbaahintu sida weyn ay u hadalhayeen inkastoo Soomaalidu ay dad yar ku yihiin meel walba oo ay community yar oo minority ay yihiin oo banaanbaxyada sida u weyn aysan aad uga muuqan karin laakiin haddana waxa mar walba aynu arkaynaa dad Soomaaliyeed oo meel walba taagan oo group walba oo banaanbaxaya markaas ka mid ah haday rabaanba ha yaraadaan dhanka dhaqaale aruurinta markii la fiiriyo iyo lacagta GoFundMe-ga lagu aruurinayo ee $1,500,000 hadda maraysa ayaa sidoo kale waxa laga dhaxarkayaa dad badan oo Soomaali ah oo dhaqaale ku bixinaya isla markaasna meelaha commentiga ah oo fariimaha loogu reebayo reerkii gabadhaasi ay ka baxday inay xataa Soomaalida ay ka mid yihiin oo ay halka fariimana ku qorayaan isla markaasna ay lacag ku bixinayaan haddaan tusaale u soo qaato wiilkan Ahmed Hussein la yiraahdo oo ka mid ah dadkii lacagta bixiyay isla markaasna qaybta commentiga fariin ugu reebay qoyskii ay gabadhaasi ka baxday ayaa wuxuu sheegay in dhimashada gabadhaasi ay ahayd mid aad markaasi asaga qalbigiisa ugu culus wuxuu yiri waxaad u taagnayd inaad dariskaaga aad u heliso waliba dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu ay markaasi ka mid yihiin kuwaas oo og buu yiri muhiimadda ay leedahay garab istaagaagii ama difaacagi waxaan si aad uga naxay buu yiri oo qalbigaygu uu la gilgishay caruurtaadii hooyo la'aanta noqday oo hadda ku qasban inay noolaadaan la'aanta marka caruurtii aad ka tagtay oo hooyo la'aanta hadda inay noolaadaan ku qasban ayaan si aad ah uga naxay ayuu leeyahay wiilkan wuxuu intaasi uu ku darayaa waxa taas ka sii muruga badan beenta ay dawladda dhexe ee Mareykanku ay ka sheegayso dilkaagii waliba ayadoo la hayo muuqaalo muujinaya qaabkii wax u dhaceen in dawladda ay been sii sheegto ayaa wax walba ka sii muruga badan geesinimo iyo dadnimo ayaa dooratay markii loo baahnaa geesinimaduna waa mid aan la iloobi doonin marka dad badan oo Soomaali ah ayaa lacagahan wax ka bixiyay waxaan sidoo kale aan encourage gareynayaa in cid walba muuqaalkayga daawata inaad lacagaha qaar ka bixisaan $10, $20, $5 waxa la waxaad awoodaan ku bixiya qaybta commentiga ayaan ku biin gareyn doonaa isla markaana fariimaha u dira dadka ay gabadhaasi ay ka dhibatay waxaana jira dad badan oo cadaan ah ayagu aan qaxooti ahayn laakiin inoo damqanaya banaanka inoo taagan dariskeena ah og inaan nahay dad fiican oo la dulminayo We love the Somali community. You guys don't deserve what you guys go through and the slander that people put you guys through. Thank you. marka soo istaaga banaanbaxa ka qayb qaata dhaqaalaha wax ka bixiya gabdhaha raashinka iyo sambuuska geenaya shaah ku biira oo adunkuna dadkaas caawiya muujiya inaad tihiin dad fiican oo ka mid ah shacabweynaha dalka Mareykanka intaas muuqaalkan ku soo koobaya bal wixii dib u arrimahan ka soo baxay